waxaanu leenahay nin walba reer buu noqon doonaa baan leenahay dawladda cusub ee maanta dalka timid arrinka maanta taagani waa dagaal siyaasadeed waa aargoosi cadaana oo lagu la kacayo dadka gobolka Gabiley iyo ganacsatadooda cawaaqib ka yimid doorashadii oo reer Gabiley iyo ganacsatadooda waxa lagu la dagaal galaya waxa weeyaan wad naga codaysan waa dagaal siyaasadeed waana aargoosi annaguna waanu ka jawaabi doonaa haddii la deyn waayo arrimaha lagu socdo ee waliba dawladda dabada ku haya hadii la joojin waayo waxa dhici doonta inay ganacsatada gobolkan Gabiley ka soo jeedana ay grief dhigaan oo ay go'aan ku gaadhaan inaan wax cashuuraba la bixin baa iman doonta qolada wasiirada ah ee arrimaha ku shuqul leh ee ganacsatada cusub doonaya inay sameeyaan waxaan leenahay waxa aad wadaan idin kama soconayaan oo idin arkaynaaye ee dad ka wantoobi weydaan si qaawan baa la isku soo wajiido waxa jiray markab sidii saliid cayriin oo saliidda lagu sufayn doono in markabkaasi sidii saliidda cayriin ee warshada lagu sufaynayo raw materials ka warshadaas ku shaqeynaysa inuu sidii oo saliid cayriina dabadeedna saliiddii cayriineedii markabkaasi sidii waxa dhacday in markabkii la diido in la cashuuro way jiraan shirkado kale oo shirkad kale oo saliid berbera ku soo sufaysa jirto oo xayaad leeyahay way la soo degaan laakiin waa ujeedada cadaana meesha waxa muuqata inay kambaniyo kale oo dagaal siyaasadeed ku jira oo ganacsi iyo ganacsato cusub oo la sameeynayo oo in la abuuro la doonayo inay meesha ku jiraan muddo imika wuxuu taagay markabkaasi wuxuu soo xidhay 13 bishii dekada berbera soo xidhay muddada 10 cishaaba uu joogaa meesha waxa meesha muuqata in dagaal cadaana lagu la jiro oo ay ganacsato dawladda haybteeda ahi ay doonayaan inay degdeg u taajiraan oo shaqada kambanigaasi uu hore u hayo 30 sano soo gacanta ku soo hayay la doonayo in si dhib yar loogu wareejiyo taasina waxaanu aqbalano ama soconaysa maaha marka laga hadlayo kambaniyada dalka ka jira waan isla wada garanaa cid baa gaar u leh kambaniyada dalka ka jira u badan maanta haddii dawladda cusub ee maanta dalka timid haddii ay doonayso maanta inay ganacsato cusub samayso oo degdeg u taajiraya wax laga yeelayo ama la aqbalayo ma aha mid kale la aqbali maayo ganacsi hebel lahaaba lagaaga qaadayo hebel kale lagu wareejinaya waxaan aqbali karana ma wax la qaadanayna maaha waana arrimihii arrintaasi waxay keeni doontaa fawda ka dhalan doontaa leen arrintaas haddii dawladdu ka joogi weydo mid kale waa waxaynu isla wada ognahay inay mashruucan ganacsato kale ku jirto waxa jira shirkado kale oo soo dejiya gas petrol iyo naafto oo terminaal kula berbera jira oo ay tilisam kamid tahay dahabshiil kamid yahay way la soo dagaan kuwaas uu oomarna kamid yahay waxaanu leenahay dawladdu haddii ay cadaalad sameeyay weydo oo shirkadaha u cadaalad sameeyay weydo oo ay shirkado gaar ah u shaqeyso nin walba reer buu noqon doonaa baan leenahay jaamac oomarna isagaaba dawladda ka awood badan adeer marka runta wada hadalno eehna kalifinaan leenahay arrintaasi waxaan leenahay guba abaal waayay waxaan soo jeedinayaa qolada wasiirada ah ee arrimaha ku shuqul leh ee ganacsatada cusub doonaya inay sameeyaan waxaan leenahay waxa aad wadaan idin kama soconayaan oo idin arkaynaaye ee dad ka wantoobi weydaan si qaawan baa la isku soo wajiidi doonaa baan leenahay ganacsatada ugu badan ee Soomaaliland maanta gobolkan Gabiley ka soo jeedaan haddii la deyn waayo arrimaha lagu socdo ee waliba dawladda dabada ku haya hadii la joojin waayo waxa dhici doonta inay ganacsatada gobolkan Gabiley ka soo jeedana ay grief dhigaan oo ay go'aan ku gaadhaan inaan wax cashuuraba la bixin baa iman doonta haddii maanta jaamac markii dalku ku socday la leeyahay cashuur ma bixiyo waxa iman doonta ganacsatada gobolka Gabiley oo dhan inaanay cashuur bixin doonin arrinka maanta taagani waa dagaal siyaasadeed waa aargoosi cadaana oo lagu la kacayo dadka gobolka Gabiley iyo ganacsatadooda waana aargoosi ka yimid doorashadii dalku uu galay ee aynu ka soo gudubnay ee lagu doortay madaxweynaha maanta talada dalka haya waa cawaaqib ka yimid doorashadii oo reer Gabiley iyo ganacsatadooda waxa lagu la dagaal galaya waxa weeyaan wad naga codaysan waa dagaal siyaasadeed waana aargoosi annaguna waanu ka jawaabi doonaa waxa jiray markab sidii saliid cayriin oo saliidda lagu sufayn doono in
markabkaasi sidii saliidda cayriinee warshada lagu safaynayo raw materialska warshadaas ku shaqeynaysa inuu siday oo saliid cayriina dabadeedna saliiddii cayriineedii markabkaasi siday waxa dhacday in markabkii la diido in la cashuuro way jiraan shirkado kale oo shirkad kale oo saliid berbera ku soo sufaysaa jirto oo xayaad laydhaa way la soo degaan laakiin waa ujeeddo caddaana meesha waxaa muuqata inay kambaniyo kale oo dagaal siyaasadeed ku jira oo ganacsi iyo ganacsato cusub oo la samaynayo oo in la abuuro la doonayo inay meesha ku jiraan muddo imika wuxuu taagan yahay markabkaasi wuxuu soo xidhay 13 bishii dekada berberaad soo xidhay muddada 10 cishaaba uu joogaa meesha waxa meesha muuqata in dagaal caddaana lagu jiro oo ay ganacsato dawladda haybteeda ahi ay doonayaan inay degdeg u taajiraan oo shaqada kambanigaasi uu hore u hayo 30 sano soo gacanta ku soo hayay la doonayo in si dhib yar loogu wareejo taasina waxaanu aqbalanno ama soconaysa maaha marka laga hadlayo kambaniyada dalka ka jira waan isla wada garanayna cid baa gaar u leh kambaniyada dalka ka jira u badan maanta haddii dawladda cusub ee maanta dalka timid haddii ay doonayso maanta inay ganacsato cusub samayso oo degdeg u taajiraya wax laga yeelayo ama la aqbalayo ma aha midda kale la aqbali maayo ganacsi hebel lahaabaa lagaaga qaadayo hebel kale lagu wareejinaya dee waxaanu aqbali karana maaha wax la qaadanayna maaha waana arrimihii arrintaasi dee waxay keeni doontaa fawdaa ka dhalan doontaa len arrintaas hadday dawladdu ka joogi weydo midda kale waa waxaynu isla wada ognahay inay mashruucan ganacsato kale ku jirto waxaa jira shirkado kale oo soo dejiya gaas batrool iyo naafto oo terminaala kule berbera baa jira oo ay tilisam ka mid tahay dahabshiil ka mid yihi way la soo degaan kuwaasunbuu oomaarna ka mid yihi waxaanu leenahay dawladdu haddii ay cadaalad samayn weydo oo shirkadaha u cadaalad samayn weydo oo ay shirkado gaara u shaqayso nin walba reer buu noqon doonaa baan leenahay jaamac oomaarna isagaaba dawladda ka awood badan adeer markaan runta u wada hadalno hana kalifinaan leenahay arrintaasi waxaan leenahay guba abaal waayey waxaan soo jeedinayaa qolada wasiirada ah ee arrimaha ku shuqulle ee ganacsatada cusub doonaya inay sameeyaan waxaan leenahay waxa aad wadaan idin kama soconayaan oo idin arkaynaaye ee dad ka waantoobeedaan si qaawan baa la isku soo wajihi doonaa baan leenahay ganacsatada ugu badan ee Soomaaliland maanta gobolkan Gabiley bay ka soo jeedaan haddii la deyn waayo arrimaha lagu socdo ee waliba dawladda dabada ku haya haddii la joojin waayo waxa dhici doonta inay ganacsatada gobolkan Gabiley ka soo jeedaan ay grief dhigaan oo ay go'aan ku gaadhaan inaan wax cashuuraba la bixin baa iman doonta haddii maanta jaamac markii dalku ku socday la leeyahay cashuur ma bixiyo waxa iman doonta ganacsatada gobolka Gabiley oo dhan inaanay cashuur bixin doonin arrinka maanta taagani waa dagaal siyaasadeed waa aargoosi caddaana oo lagula kacayo dadka gobolka Gabiley iyo ganacsatadooda waana aargoosi ka yimiday doorashadii dalku uu galay ee aynu ka soo gudubnay ee lagu doortay madaxweynaha maanta talada dalka haya waa cawaaqib ka yimiday doorashadii oo reer Gabiley iyo ganacsatadoodaba waxa lagula dagaal galaya waxa weeyaan wad naga codayseen waa dagaal siyaasadeed waana aargoosi